bismillaah asalaamu calaykum waa mar kale iyo waraysiyadeenii la xiriiray aqoonta iyo xirfadda waxaa isweydiin mudan ahna xirfad cusub oo soo baxday waayahan dambe in onlineka wax lagu soo gudbiyo waxaa la soo gudbinayo ha ahaadaan madadaalo ama ha ahaadaan aqoon iyo wacyigelin iyo weliba thaqaafo wax la xiriiro youtube-ka oo ugu caansan meelaha wax lagu soo gudbiyo walow baryahan dambena facebooka uu ku soo biiray ayaan wax iska weydiinaynaa youtube-ka oo ugu caansan sidee wax loogu soo gudbiyaa sidee horumar looga gaaraa sidee loo joogteeyaa islamarkaana loo kasbadaa dad cusub iyo taageerayaal su-aalahaas iyo sida uu qofka wax isku bari karo onlineka isagoo adeegsanayo waxaan wax ka weydiin doonaa islamarkaana maanta aan marti u nahay asagana marti noo ah walaalkeen cumar inshaar oo leh janalka la yidhaahdo ogaansho oo aad wada taqaanaan oo ay ku xiran yihiin dad ka badan amaba ku dhow nus milyan qof wakhtigan aynu duubayno waraysigan soo dhowow cumar adigoo aad u mahadsan aanna kaaga mahadcelinayno inaad naga aqbashay inaan waraysigan kula yeelanno asalaamu calaykum waan dhowahay runtii waana ku faraxsanahay in aan barnaamijkan kaala qayb qaata maanta kanaalkaadana runtii waxaan kugu tahaniyadeynayaa in uu maasha allah xoog u koraayo youtube-kana runtii aad ka noqon doonto number adag insha allah waxaan ku rajeynayaa sida muuqatana dabcan inaad youtube-ka guul weyn ka gaari karto aad iyo aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waan kaaga mahad celinayaa runtii taageeradaada iyo weliba dhiirigelintaada oo ah sababta aan u jeclaystay in aan la wadaago waraysigan dhallinyarada doonaya inay majaalkan kusoo biiraan haddii aan ku bilowno marka wax isbaridda bal nooga waran wax isbaridda adiga khibradda aad u leedahay ee waaye aragnimo ee xagga wax isbaridda onlineka kusoo dhowo waan dhowaa mar kale hortu zamankan hadda aan noolnahay waxaa lagu magacaabaa zamanka wax isbaridda markii yacni la qeexana waxaad ku soo koobi kartaa si sahlan isxilqaan mas-uuliyadna isisaar hadda tusaale ahaan ninka la yidhaahdo Elon Musk maalin walba wax cusub oo cajiib samaynaya ninkaas hadda haddii la weydiiyo yani wax sababta aad meeshan ku gaartay qasab waxaa in uu kugu jawaabayo wax isbarid anaa wax isbaray oo ah maanta yani waagi hore dabcan xiliyadii hore dadku way yarayd in wax la isbaro sababtoo ah ilaha waxbarashada laga soo xiganaya ama waxa aad baranaysa meesha iyaalaan waxay ku jirta yaa ima gacan xukuumadeed yaa ima hay-ad way adkayd in la helo isha aad wax ka baranaysa laakiin maanta wax walba internetka ayaa waxaa ku jira yani wax alla waxaad u baahato haddii ay noqoto youtube-ka ilaa heer waa laga gaari karaa inaad adigu wax ka barato sidoo kale waxaa jira websiteyo yacni lacag yar aad ku bixinayso sida Udemy Coursera oo kale waxaad ku bixinaysaa lacag yani qada intaad ku qadaysay kadibna waxaad baranaysaa waxaad rabto haddii aad rabto inaad barato programming haddii aad rabto inaad barato sida barnaamijyada loo bedelo haddii aad rabto inaad sida sawirada loo sameeyo waxaan arkaya nin yiri 25 sano ayaan waxaan ka cameraman Hollywood ninkaas khibradiisa 25 sano oo filmadaas yani cajiibka sameynayay $16 ayuu kugu baraya Coursera marka zamankan in aad wax isbarto waa zamanka ugu sahlan kaliya waxaad u baahantahay waa isxilqaan يعني inaad isxilqaanto inaad waqtigaada xakameyn karto in aad yani aadan caajisin sababtoo ah haddii aadan haysanin qof yani ku dul taagan qof kuu diraayo waxaad ka soo shaqayso homework kuu diraayo way adkaanaysaa haddaadan go-aan lahayn inaad wax isbarto marka maanta yani inaad wax baran karto ama zamankan inuu zamanka wax isbaridda yani qodobka ugu muhiimsan waa in meelihii wax laga baran lahaa isha wixii aad baran lahayd ay yaalaan oo macnaha ayna ahayn cid xukuumad ayna haysanin ama hay-ad kale ay haysanin ee adiga aad gaari karto aad iyo aad runtii waxaad u dhigtay sidii ugu wacnayd uguna koobnayd ee loo soo jeedin lahaa waxaa ayadana su-aal ay ka imaanaysaa isla wax isbariddaas la xiriirto luqadihii ayaa furo u ah qofka inuu onlineka wax iska baro luqadda englishka iyo luqadda carabiga dhalinyaro aad u tiro badan oo markii aan iclaamiyey amaba aan wargeliyay inaan waraysigan qaadayno waxa ay soo codsadeen sida qofka uu ku baran karo labadaas luqadood onlineka uu ooga baran karo iyo masaadirta uu adeegsan karo ee adiga aad ka faa'iiday horta waa sax markaan maanta ka hadlayna mujtamacana Soomaaliyeed yani markaan leenahay wax isbarid dhinaca internetka runtii waxaad ku qasban tahay in aad taqaano luqad aan af Soomaali ahayn haddii ay noqoto af Carabi ama haddii ay noqoto English ama xitaa luqad kale xitaa Faransiiska oo kale yani luqad ugu yaraan ay dad badan ku hadlaan in aad taqaano runtii waa arrin muhiim ah waana arrin kaa saacidayo inaad wax isbarto luqadda yani dadku waxa laga yaabaa markii maanta la yiraahdo qof barashada luqad
in uu luuqad la baranayo la sima tusaalahaan cilmi la baranayo kale haddii ay noqoto physics ama chemistry luuqaddu ma ahan cilmi luuqaddu yacni sidaad u baranayso oo kale lagdinta ama mahaarad ay shay aad u baranayso ayaad u baran kartaa oo ah yacni waa mahaaro yacni wax u baahan keliya inaad joogtayso ma ahan cilmi aad xifdinayso ma ahan wax yacni aad u baahan inaad ka shaqayso inaad luuqaddu keliya qaabka ugu sahlan ee luuqad lagu baran karana waa wadada yacni ugu khafiifsan ama ugu fudud tusaale ahaan ama haddii aan si kale u dhigo luuqad in aad baranayso ama luuqadan aad baranayso qodobka ugu horeeya kaa saacidayo waa inaad luuqadan jeceshahay haddii ay noqoto af carabi haddii ay noqoto english luuqadda mar walba oo aad jeceshahay yacni waad baran kartaa waa waxaan xasuustaa aan afka ruushka yara cajabiyey muddo isbuuc gudaheed ayaan xoogga yara saaray runtii dad ruush aan la kulmay la yara hadlay way yaabeen xataa qaabkaan ugu dhawaaqay laakiin dhowr kelmadood ay ahaayeen waa muddaa ka soo wareegatay waxaan ula jeedaa luuqadan haddii aad jeceshahay waxay noqonaysaa inaad raadiso yacni dad ku hadlaayo aad baarto mar walba ood dhegaysatana dad ku hadlaayo waxay ka dhigantay inay kuu fudaanayso iyo yacni in aad jeceshahay maqalkeeda kelmadaheeda wax kasta uu qofku jecel yahayna waa in yani dabcan way u sahlananayeen teeda kale inaad sii ogaato in luuqaddu ayna ahayn yani wax adag okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii hadda haddii aan dhahno oo kaleeto runtii adiga waxaad aad ugu fiican tahay labada luqadood englishka iyo carabiga sideed ku baratay yani waa runta fikradda aad sheegaysa ee ah qofka inuusan luqadda u arkin wax adag oo macnaha yani marka imtixaan la diyaarinayo ama marka maado la diyaarinayo aad qaadanayso way ka duwan tahay luqadda waa waxaa tiri joogtayn u baahan waana runtii yani arrinta ugu muhiimsan oo ay tahay luqad markii la baranayo marka wadada uu raaci karo ee uu joogtayn karo waa inuu dadka la hadlo qofkii waa in uu maxaa la yidhaahdaa uu raadiyo asaga masaadir oo dheeraad ah uu ka heli karo marka adi hadda maxaad wax masaadira u sheegi kartaa dadka meel laga baran karo luqadda carabiga iyo englishka horta aniga shakhsi ahaan luuqadayda markii af soomaaliga laga soo tago waxaan dhihi karnaa waa af carabiga englishka ani hadda melihi yani englishka waxaan ku ay ama si fiican ama xitaa si weyn ayaan u aqaanaa kaliya yacni luuqad aslan ujeedka koobaad dadka waxaa laga yaaba luuqad markay baranay inay isku mashquuliyaan u hadal sida qofkan u dhashay u hadlayo kale haba yareeta kuma qasbanid inaad u hadasho micnaha sida uu ninkan u dhashay ama hadduu yahay carabi ama hadduu yahay english oo dadka qaar runtii ay dadka ku ceebeeyaan waa lagaa yara dareemay inaad soomaali tahay caadi ha lagaa dareemo wax dhiba ma lahan luuqaddu ma ahan yani dabcan si kastood u barato luuqad aadan u dhalan waa lagaa dareemay inaad barato marka waxaa ula jeedaa qasab ma ahan in aad luuqadan u barato si 100% aniga tusaale ahaan markaan youtube-ka bilaabay ama 4 sano u dambeeyey luuqadda ingiliishka yani runtii waxaan sameeyey horumar weyn ayaa la dhihi karaa oo ah in aan ku qasbanaaday inaan raadiyo marka yani waxyaabaha kaa saacidaya luuqad inaad barato waa in yani aad wax markaas gacanta kula hayso in markaas aad wax gacanta ku hayso tusaale ahaan waqtiga markii leeyahay waqtigaada ka faa'iideyso waqtigaada ka faa'iideysa macnaha adoona waxba haynin yani waqti kama faa'iideysan kartid suuragal ma marka in aad hawl hayso hadda tusaale ahaan yani ani maanta youtube-ka isbuuci waxaan sameeya 3 muuqaal qof maanta ima dhihi kara ama hadda ii imaado ima dhahayo waqtigaada ka faa'iideyso sababto waad ku qasbantahay waqtigaada inaad ka faa'iideysato taasoo ah luuqad haddaad baranaysa wax yani kugu saacidayo luuqadan inaad barto samee sida tusaale ahaan kaba soo qaad buuxaarta inaad barato shay mucayana waxaad ahdaa tusaale ahaan yani sida hadallada loo jeediyo ama cilmi mucayan ah ayaan waxaan ku baran af english ama af carabi barashada aad cilmigaas baranayso ayaa kaalin ka noqonayso inaad englishkan ama luuqadaas barato iyo runtii hadda youtube-ka kale xitaa haddii aan kasoo tagno websaydyada lacagta youtube-ka ilaa heer yacni waxaad ka baran kartaa luuqadaad rabto hadda haddii aad carabiga fahmayso yar waxaa jira la yidhaahdo masri ah oo lagu magacaabo the american english yarkaas yani soomaali carabi taqaana dabcan way jiraan yarkaas waxaan hubaa qofkii duruustiisa kii koobaad ka soo bilaaba hadda yani wuxuu isu bedelay akaademiyad weyn oo xitaa shiinayska faransiiska isbaanishka wuxuu sameeyey hay-ad lagu magacaabo muasasa lagu magacaabo taliiq oo ku saabsan youtube-ka luuqadaha loo barta ninkan wuxuu ah nin saciida oo iska beeraley ah englishna yani xataa muu aqoonin keliya wuxuu ku bartay xataa asaga soo sheegay isbaridda in uu qof walba uu isleeyahay qofkan yani luuqadan ku hadlaa in uu la hadlo in uuna ka baqin in aadan qaladka ka baqin in yani aad leedahay dhiiranaan
sababta ujeed ayaad leedahay in aadan isdhihin yani amay ku dhahaan sidaad u hadlaysa si wanaagsan ma ahan marka qodobka ugu muhiimsan waa inaad jeceshahay waa inaadna leedahay yani maxay ahayd dhiiranaan aad iyo aad marka waxaan kusoo koobaynaa waa inuu qofka kow uu helo wixii uu luqadaanayta uu kuma maarasayn lahaa saxiix aad iyo aad wixii uu tusaalahaan oo kale ani hadda oo kale luqadda englishkayga xoogaa yani way fiican tahay waxa ay ku fiican tahay waxa weeyaan 5 sano ayaan wax ku baranayay marka markaad wax baranayso ha dhayalsanin luqadaadana horumari marka waxay dhahaan luqadda dhowr qaybood bay u qaybsantahay ilaa 4 qaybood bay luqad kasta leedahay waa speakingki ku hadalki iyo akhrinti iyo qoraalki iyo dhageysigii marka waxay dhahaan mid kasta oo kuwaas ka mid ah qaab mucayan ah aad u horumarin kartaa tusaalahaan oo kale hadaad rabto dhageysigaaga inaad horumariso waa inaad dhegeysato luqadii markaad warka dhegeysanayso waa inaad warka ku dhegeysato luqadda carabiga rabtaa inaad barato waa inaad daarato janal carabiga kusoo gudbinaya warka haddii aad rabto akhriska inaad horumariso oo kale waa inaad soo qaadato joornaalada englishka ku qoran rabto in englishkaaga akhriskiisa inuu horumaro englishkaasna waa inaad joornaaladaas intaad la fadhiisato aad kelmadihii baarto ama af soomaali dictionary soo qaado ama mid carabi dad carabi taqaano soo qaado sidoo kale haddaad rabto inaad horumariso hadalkaaga sida uu cumar sheegay waa inaad maxay aad u tagto dadka luqadda u dhashay ee ku hadlo sidaas ayaad luqadaada ku horumarin kartaa nuqdadaana meeshaas ayaan kaga gudbaynaa runtii waxaan jeclahay in si fiican uu u sharxay ustaad cumar haddii aan u imaano marka arrinta ugu muhiimsanayd ee ku saabsanaa waraysigan amaba wada sheekaysigan waa youtube-ka bal waxaad nooga warantaa bilowgaagii youtube-ka sidaad ku bilowday iyo wixii kugu dhaliyay youtube-ka horta kanaalkan ogaansho waxaan bilaabay midkaan hadda socdo waxaan bilaabay 2017 bishii afraad waxaa jirto in muddo yar ka hor 2 bil mase 3 bilood ka hor ayaa waxaa jira kanaal isla magacaan huwano saan laakiin mushkilad dhinaca emailka ay haysatay 14 markay dadka marayaan yaan kansalay kanaan bilaaba marka oo email gmail aan u sameeyay yani isku yar habaysan 2017 kaas ayaan bilaabay marka waxa igu dhaliyay in youtube-ka wax kusoo gudbi waa in aan jeclaa waxaan xasuustaa 2013 2014 xitaa kasii hor in aan samayn jiray muuqaalo kadibna aan saaxiibada qaar aan daawasiin jiray waxaan xasuustaa yar safray 2010 aan isla joognay maxamed axmed la dhihi jiray ayaa waxaan ka sameeyey muuqaal taariikh nololeedkiisa marka in aan jeclaa waxyaabaan muuqaalo badan oo xitaa waxaa jirtay aan sameeyey laakiin aan raadinay meel aan kusoo gudbiyo meel aan macnaha dadka kula wadaago marka in aan jeclaa inaan soo gudbiyo mowduucyadan ayaa igu dhaliyay inaan youtube ka sameeyo oo runtii markii hore ani xitaa lacag in laga sameeyo ma aqoonin waxaan xasuustaa sanad markii kasoo wareegatay yaa yar maalin wuxuu yidhi google adsense see loo sameeyaa maxaa yidhi google adsense maxaa laga wadaa kaas google adsense lacagta lagu helo marka inta badan wax qofka uu u sameeya yani inuu jecel yahay meel buu ka gaaraa aad iyo aad waa runtii fikrad aad u fiican dhalinyaro badan oo doonaysa inay lacag ka samaysana waan u imaan doonaa sida inay fudud tahay in lacag laga sameeyey in kale marka waxaan kaloo jeclaystay inaan ku weydiiyo bal sidaad ku dooratay majaalka aad ka hadasho iyo mawaadiicda iyo sidaad ku dooratay arrinta ayadeena bal inaad dadka la wadaagto sababtoo muuqaaladaada runtii aad bay xiise u leeyihiin dadka aad bay u taabtaan qaarkood dad milyan ahaa daawaday marka bal arrintaas nooga waran horta qofka inta badan waxa uu social media kusoo gudbiyay haddii ay noqoto facebook haddii ay noqoto tiktok ama youtube waa wax uu ihtimaamka siinayo aniga weligay yani mawduucyada noocaan aan ihtimaamka siin jiray haddii ay noqdaan dhinacyada falsafada taariikhda juqraafiga yani in aan jeclaa oo aan ihtimaam siin jiray ayaa igu keentay qofka markuu tusaalahaan ama aan sameynayo kale xitaa dadka qaar marmar waxay markaan ka hadlayna shay arrinkan adoo ku soo dhacmiyaa mase adaa kusoo gubtay wax saas oo kale oo ah yani waxaan inaad dareemayso inaad isdareensiinayso inaad aad u akhriso inaad aad ula socoto ayaa keenayso in yani qofkan waxaan uu soo gudbina aslan waa wax uu ihtimaamka siiyo marka in aan soo gudbiyo mawduucyadan waa in aan ihtimaam siin jiray oo aan waagii hore yani aan jeclaa xitaa inta aanan youtube-ka la gaarin aad iyo aad waa si fiican okay marka magacaaga oo janalkaaga aad buu u kooban yahay waana runtii waxa aad soo gudbisay asaga waa isleeyihiin dad badan baana yani iga soo codsaday sidaad magaca ku dooratay bal inaad ka waranto iyo dadka la baxayo magacyada dheerdheer ee janalada ah ayagana waxaad bal ku dhihi lahayd runtii magaca horta magaca waa shay muhiima hadda kanaalkan maanta aad samaynaysa ee aad magaca u bixinayso waxaa macquul berri inuu ku noqdo brand shirkad adi aad leedahay marka in magac uu yahay magac kooban oo wax ka tarjumaya waa muhiim
iyo dadka yani runtii nasiib xumo dadka qaar in ay la baxayaan magacyo dhaadheer oo yani aad u malaysa in laga soo tegay sida hebel production iyo maalan qof nin dhalinyaro ama gabar aanan la aqoonin qof yaqaano ayna jirin maanta markuu kanaal sameeyo uu u magacaabayo uu ku magacdaraayo hebel ama heblaayo official YouTube channel. طبعا official markii inta badan meelaha cinwaanada lagu sameeyo waa qof caan ah oo la yaqaan oo iska soocayo صحيح hay-adooda oo iska soocaya kanaalada fake ee la sameeyay marka yani production ama channel looma baahno magac yar oo kooban oo yani muujinayo anis markaan sameeyay waxaan xasuustaa waxaan necbaa magacyada dhaadheer ogaansho xitaa marba waxaan damcaynan ogaan kaliya u bixiyo ogaan magac saas oo kale marka waana muhiim magac dadka ay qaban karaan yar adii xitaa magacaada aad la baxaysa dhib ma lahan hebel hadaad la baxaysa waa caadi laakiin in aad hebel official channel ama hebel production aad sii raacayso qof YouTube wax kusoo gudbiyaata ani hadda maanta ma dhihi karo yani ogaansha production ma dhihi karo sababta production inta badan waxaa loola jeedaa yani shaqul weyn hawl weyn wax dad badan ay ka wada shaqaynayaan intaaj weyn la samaynayo tawaaducna waa loo baahay qof macna YouTube wax kusoo gudbiyaa tahay yani magacaada la bax ama magac yar oo muujinaya wax soo gudbinta marka intaad dhihileed hebel production shirkadaha waaweyn maarta ama kuwa aflaamta ama kuwa muuqaalada sameeyo miisaaniyada badan leh iyo inta badan production yani huwan magacaas marka waxaa fiican magac inuu yahay magac yar oo muujinayo waxa aad soo gudbinayso waxaa iyadana jirto in la isweydiinayo siduu qofka ku joogtayn karaa yani dad badan baa janala furta markay dhowr bilood wadaan waxa weeye waa ka banjartaayo waa iska daayaan marka maxaad dhihi lahayd ood ku dhiirigelin lahayd inuu qofka joogtay maxaa ku saacidi karo horta runtii markaan ka hadlayno YouTube-ka waxa ugu muhiimsan waa joogtayntaas xataa intaan wax kale la gaarin kanaalkaada uu dhiman haddii tusaalahaan isbuuca 2 muuqaal soo geliso ama 1 muuqaal xitaa laakiin muddo aad moogaato bil aad moogaato ood 1 muuqaal soo geliso kadibna aad muddo moogaato uu dhiman kanaala xataa anisaas waan aqaanaa kuwa carabi ay leeyihiin ka caajisay 1 milyan ku sii dhow laakiin maanta ay daawadaan 1,000 qof 2,000 sababtoo ah yani kanaalka uu dhinta marka inta badan qofka hadii horto yani hadii aan si qayaxan u yar hadalno hadii aad maadi ahaan aad ka sameynayso dhinaca maadiga طبعا uu il ku yahay dhaqaale aad ka sameynayso waxaad ku qasbantaa inaad yani xoogga saarto dhaqaalahan aad ku dadaasho iyo yani hadii aad wax kale ku soo gudbinayso طبعا hadii aad aslan jacashay adaanba ka caajisaynin waad aragtay runtii inta badan dadka ka caajisa ama aan ihtimaam ka siinin waa dadka maaragtay aan islaahay ama lacag kama sameeyaan lacagta ceeb ma ahan waa wax daafic wax kugu riixayo wey waa shidaal dadka hadda kanaalada yar waaweyn 100 kun dhaafay way adagtahay inay ka tagaan sababtoo waa il dhaqaale marka adi haddii kanaalkaada maanta uu yaryahay oo aadan weli lacag ka helin lacagta waxba qiimaha siin lacagta iyada iska imaanaysa iyo dadka iyaga iska imaanaya keliya xoogga saar yani waxaad soo gudbinaysa muuqaal fiican samee ku daal yani waqti badan geli ha dhihin maalan maalintii waxaan sameyn 3 muuqaal aad iyo aad waxaa igu soo dhacday arrin aad xustay oo ah yani dhaqaalaha dad waxaa jiro hadda bilaabahayo macnaha YouTube-ka oo doonaya inay dhaqaale ka sameeyaan macnaha oo dadka ka codsanaya si ilxaax amaba si zaa'id ah in shoot out loo sameeyo amaba loo xayeysiiyo bal waxaad wax ka tilmaantaa dhalinyarada doonaysa inay u soo galaan dhaqaale ahaan aniga oo kale haddaan ku daro arrintaas ayada intaadan adiga soo gelin ani hadda muddo sanad ah wax kusoo gudbiyaa YouTube-ka yani 10,000 ka badan buu gaaray ilaa haddana maanan maxaa la wax dhaqaale ah kama helin marka adoo arrin meesha ka qiyaas qaadanayo aadna ogtahay oo kale adi khabiir aad u tahay bal ka waran dadka doonaya inay marka hore ay bilaabayaanba dhaqaale ahaan ka raadinayo horta dadka ilaahay wuxuu yidhi khuliqal insaanu min cajal dadku way degdeg badan yihiin yani qofku wuxuu rabaa in maanta kanaal uu sameeyo berri uu 10,000 oo qof ay kusoo biiraan in uu maanta kanaal sameeyo berri uu yani lacag helo ama lacagta uu ka sameeyo waxa ugu xun ee ay macquulka tahay in YouTube-ka runtii intaad ku jirto waa inaad qof ka dalbato inuu kugu sameeyo haba yaraatee yani hadalkan si dhab u qaado haddii aad kanaal leedahay in qof uu kanaal kuu sii faafiyo wax ay kugu soo kordhinaysa malahan wax kanaalkaada kor u qaadayo waa wax aad soo gudbinayso yani wax aad soo gudbinayso weeyo ma ahan in yani qofkan dadka sababtoo ah dadku waxaad ogaataa dadkan daawanaya in yani qofkan markaan anaga maalan leenahay hebel kusoo biiroo kale haddii ay arkaan kanaalkan in yani qofkan uu dadaal badan geliyey
waa laga yaabaa laakiin kanaal cusub oo dadba ay ku xirnayn xataa kanaal waxaad arkaysa dad wax fariin soo diraya walaa hal subscribe ma lahan kadibna wuxuu leeyahay dadka ii gaarsi ii faafi yani qofka markuu kanaalkaada maanta kusoo biiro muxuu arkay wuu iskaga tegi marka ugu yaraan waa inaad content video aad soo gelisay mid waxaa jiro maraykan ah oo marcos wax saas kale magaciisa madow laakiin magaca Spanish wax saas leh yaa Marcus Brownlee aywa ninkaas saxiix ninkaas yarkaas wuxuu yiri waxaan soo geliyay 100 video markaan soo geliyay yiri waxaan haystay 75 qof yani fiir videoyada badna marka adigoo wali aan hal muuqaalna soo gelinin inaad dhahdo macnaha shad hal igu sameeyo hal ii xayisiyo runtii hadii aad ku fikraysa hal ii xayisiyo hal ii sii gaarsiin waxa kula tan YouTube furan iska dhaaf sababtoo yani waxaad rabtaa inaad dhowr jaraanjara ka boodo dadaal yani intay rabtaa kugu qaadato ilaahina tala saaro insha Allah ma hoogaysid marka waxaad nooga warantaa shuruudda macnaha qofka inuu lacag sameeyo YouTube-ka looga baahan yahay bal arintaas ayada wax nooga tilmaan horta YouTube-ka markaad kanaal samaysato inaad kanaal samaysatana way sahlantahay haddaad ciwaan Gmail haysato Gmail kan caadiga email-ka dad haysato waxay ka dhigantay inaad kanaal YouTube leedahay kaliya waad yiri bedeli magacaad yiri bedeli channel-kaada waxaad ka dhigay waxaad u samayn profile waxaad u samayn sawirka kore cover-ka shuruudaha YouTube-ka waa in aad marka hore haysato 1000 qof 1000 subscribe kanaalkaada inay ku jiraan kadibna waxay dhahaan 4000 oo total watch time saacad la isu geeyay yani waxa laga yaabaa inaad fahankooda xataa isku sii mashquulin dhowr video markaad soo geliso insha Allah 4000 saacadood isku celceliso in la daawado marka adu taasna waxaad ku gaartay inaad dhowr video markaad soo geliso dad badan dad insha Allah ay ku daawadaan ilaa 2000 shuruudaha waad ka soo bixi YouTube-kana dabcan markaad kanaalka aad samayso oo aad bilowdo muuqaal uploading aad bilowdo waxaad iska ilaalisaa muuqaal walba oo leh copyright sida inta badan heesaha sida inta badan aflaamta ciyaaraha waa kuwa ugu daran muuqaalada inta badan newska akhbaarta waxyaabaha iska caadiga dhacdooyinka maalinlaha ah shirkadaha sameeyay ama TV-yada ayna waqti badan gelinin kuwaas ay copyright ma lahan marka camal walba ama hawl walba oo waqti qaadatay shirkad ay soo samaysay sida aflaamta video clipka heesa ama waxay ahaadaanba xataa anashiida qaar quraanka inta badan yani copyright ayuu leeyahay sidoo kale waxaad iska ilaalisaa waxay dhahaan yani muuqaalada soo noqnoqonaya in qof muuqaal soo geliyo kadibna aad soo qaado kadibna aad sii geliso taas kanaalkaada waxa laga yaabaa YouTube-ka inuu ka kansalo spam oo arko marka qodobkaas waa sidaas aad iyo aad waa si fiican macnaha channelka waa in 1000 subscribers uu leeyahay waa in la daawado 4000 oo saacadood oo videoyada dhan la daawado 4000 oo saacadood markaan daqiiqo u bedela waxay noqotay 240,000 oo daqiiqo in la daawado channelkaaga marka arrin sahlan ma aha runtii waxa ayadana jirto oo la xiriirto arrinta hore shoot out-ka dad quality-ga macnaha qofka inuusan quality-ga xoog saarin inuu dhowr muuqaal oo kala duwan uu soo galiyo amaba sawir aad quality-ga uu u liito uu soo raaciyo codkiisa oo kale bal ka waran arrintaas ayada ah macnaha dhalinyarada aanan quality-ga xoog saareenin ee iska fikiraya on quantity-ga kaliya hatta dad waxa jiro ayaga inta wax iska duubaan muuqaalkii ayagoona wax editing ah ku sameeyay sidiis u soo galnay ama kaamirada angle fog iska dhigay qofka inuu barto macnaha sida kaamirada looga hor hadlo sida intaajka loo sameeyo muuqaalada la isku gangeynayo in muuqaal la saaro sawirro quality in la raadiyo masaadirta laga heli karo bal arrintaas si fiican u faahfaahis runtii tayada waxaad soo gudbinaysaa waa muhiim YouTube-kana hadda markaad muuqaal baarayso kale muuqaal markaad baarto YouTube-ka marka ugu horeysa wuxuu ku soo gudbin yani muuqaalada ugu tayada badan ee mawduucaas laga yiri kadibna muuqaalada inta badan dadku ay daawadeen marka haddii aad yani muuqaalba samaynayso isku day tayada inaad ku dadaasho gaar ahaan codka yani duubitaanka codka aad duubayso waa wax ugu muhiimsan dadka waa laga yaabaa inay u dulqaataan muuqaal tay ahaan yari liita laakiin codku u fiican yahay laakiin muuqaal tayo sare leh codkana uu xun yahay cid daawan karta ma laha qodobka ugu muhiimsan sababtoo dhagaha waa xasaas oo aragtidii la yara qayliya ama cod yara si tashuushu ku jiro ma dhageysan kartid laakiin aad daawato laga yaabaa marka way jiraan website-yo aad ka helayso muuqaal aad u badan oo free sida hadda mid la yiraahdo Pexels iyo mid la yiraahdo Pexabay sidoo kale oo muuqaal ilaa heer kugu filan oo wixii aad u baahato aad ka helayso way jiraan marka tayada quality waxaad soo gudbinayso
waa mid aad iyo aad muhiim. Waxayna ka qaadanaysaa macnaha qof markuu kanaalka soo gala maanta oo arko muuqaalo tayo leh waxaa qasab inuu kusoo biiro, laakiin markuu arko cod dheer inta badan saxo iyo muuqaalo tayo xun waxa uun aad iska soo gelisay, dadku kuma sii istaagayaan, qofku kasii socon. aad iyo aad si fiican boqolkiiba boqol waa run. arrintaas waa xaqiiqo ani aan tijaabiyey runtii ka qof youtube-ka ku cusub ahaan. waxaa jirta inaad tiri wadankii inaad ku laabanayso oo aad doonaysa inaad muuqaalo kasoo samayso, waa runtii arrin aad u fiican oo loo baahan yahay. dad badan oo adduunka nagama warhaayeen wadankanaga waxna lagama soo gudbiyo. arrintaas aad baan kugu ammaanaya, kuguna dhiirigelinaya runtii. marka waxaan jeclaysanay bal haddana inaan bal dhalinyaro badan oo soomaaliyada waxaa jirta ku fikraysa qurbaha inay soo aadaan. marka bal inaan isbarbar dhigno nolosha wadankii iyo tan qurbaha dadka ma janna ma meel lagu gubtaa ma meel aad u fiican ba. bal arrintaas inta wixii khibrad nololeed aad u hayso inaad la wadaagtaan jeclaystay dhalinyarada. bal horta qofku markuu qurba soo aadaya, haddii uu noqdo ama wadamada carabta, haddii uu noqdo Yurub, Maraykan, uma soo aadaya inta badan yani ka qurba ahaan uma soo aadaya. wuxuu u soo aadayaa yani hadaf mustawa dhaqaale ahaan, heerka dhaqaale inuu hagaajiyo ama in uu yani sidaas darteed ujeedku ma ahan ka qurba ahaan, macnaha qurbuhu ma ahan janno. yani hadda Maraykan, Canada, dhacdooyinka yani qisooyinka Soomaalida dadka caruurta laga qaadanayo waayahayo, kuwa xitaa xaaladda murugada nafsiyadeed ee eberka ku nool, macnaha qurbuhu ma ahan janno. maalin waxaa arkaa yar tegay Norway muddo ku noolaa 4 sano miya 4 sano ma adu 3 sano ku noolaa. markii hore wuxuu aaminsanaa Norway inay tahay janno, laakiin markuu xaaladda ka jirta arkay ayuu dib iskaga soo laabtay, Turkiga ku soo laabtay. marka qurbaha waxa ay dadka inta badan u aadaan waa raadinta dhaqaale. haddii aad awooddo in mashruuc noocu ahaadaba aad samayn karto dalkii meel ay ahaataba, yani qurbo uma baahnid, wax aad qurbo uga baahantahay malaan. waxaad arkaysaa dadyo badan oo yani ama waqtiga uga dhumay qurbihii ama xitaa kasoo tagaya. marka qurba ahaan ma ahan ee waa in yani qofkan laga yaabo in dhinac kale uu u soo aaday. marka haddii aad haysato dad waxaa laga yaabaa $10,000 haysto, يعني كدبنا دومو آداي أما تهريباي أما حتى نفتو خطر قلناي كليا يعني هداد ودي سنة قرب ولا جاي بقف كاس أتكيسو إنه هي سنبه حتى أجانب طبعا ما هيستان لا جاي بقف أركته إنه يعني حتى $1 جيب كيسو جيرين مركا قربه رنتي ما أهن جنة يعني قاعدة جود سي أجو ما أهن جنة ما أهن مال يعني الدون كان وحدو قاتا إله قومت تلقلين معناه إن إجرت مال أنا اللي قلنا ولا كرين iyo meel jaxiime furuuq yar way jiraan, laakiin adduunkan ma ahan ma jirto aywa saxiix. adduunku ma jirto meel jaxiime ah, sidoo kale ma jirto meel janno ah. halkaana dhibaa taalo, dhib yani wax kastaa yaallo. sidoo kale dalkii waa laga yaabaa qofku inuu mashaakil wajaho. marka waxaad ogaataa haddii aad isleedahay dalkaad joogtaa mashaakil baad ka cabanaysaa maanta, in yani qurbahana sidoo kale mashaakil uu ka jiro. aad iyo aad waa xaqiiqo. marka warkaaga wuxuu noqonayaa asigoo kooban, qofka hadduusan hadaf lahayn qurbaha uu ku wareera. haddaadan hadaf aad leedahay oo aad u soo aadaysa aysan jirin, ee ah bas un keliya saaxiibada sawirro qurqurxan oo aad ka aragtay amaba saaxiibadaayoo nolol fiican kaaga sheekeeyey, markaas way marka aad ku wareerayso. laakiin haddii aad waxbarasho u soo aadayso oo hadafkaaga uu waxbarasho yahay, dabcan yani 100% waxbarashada dibadda way ka fiican tahay tan waddanka. sidoo kale haddii aad u soo aadayso inaad maxaa la dhaqaale ka samayso, waxaa la dhihi karaa maanta dhaqaale Afrika in laga sameeyaa ka fudud in laga sameeyo dibadda, sababtoo dad badan oo tusaale ah ayaad arki kartaa maanta milyaneer ayagoo waddanka jooga, halka kuwa 30 sano qurbo ku maqnaana markay soo laabteen ay 30 sano kadib yani waalidkood inay soo booqdaan ay imaanayaan. ay macnaha taasna waxaa ku kaliftay dhaqaale la'aan. inta badan waxaan maqalnaa dad le baasaboor baan qaadanaya, baasaboorka wuxuu ii fududeynaya inaan socsocdo. haddii daadan dhaqaalaheen maxaad ku socon, tigid baad u baahan tahay, baasaboor Soomaaliya ka fiican yani tigid baad u baahan tahay, meel aad degtaad u baahan tahay iska bixiso, baasaboorku dhaqaale kuma noqonayo. marka taana waa muhiim aad iyo aad. marka muuqaalada marka aad doonaysa inaad waddanka soo samaysadaan u imaano ma traveling iyo vlogs, dhalinyarada qaar baa isoo weydiiyey miyaad u badinaysaa muuqaaladaada ama ay noqonayaan mise waad sii wadaysaa muuqaaladii ee dhiirigelinta ahaa, thaqaafada ahaa, wacyigelinta ahaa, akhbaarta ahaa? bal arrintaas ka war. horta muuqaaladii yani hadda kanaalka sida ku socdo, muuqaaladan ama nolosha ku saabsan marna kama tegayno.
يعني in sha allah markaan dalka tagno waxaan aaminsanahay dalka inay jiraan yani qisooyin badan oo la wariyay inay jiraan xitaa marka laga soo tago meel taariikhi ah oo muuqaal laga sameeyo waxaa jiro yani dad xitaa u baahan qisooyinkooda in caalamka u maqal in Soomaalida ay maqlaan marka waxa ugu muhiimsan waa in qisooyinkaas aan soo tabiyo waxaan rajeynayaa insha Allah sidaan qorsheynaa in meelo badan oo dalka kamid aan tagi doono mar aan fogeyn marka qaabka hadda uu ku socdo ogaansho ma joojinayno qaabkan cusub waxay noqon doonaan macnaha wax nagu soo kordhay ayay noqon doonaan oo waxaan rajeynayaa in qaab macnaha documentary ahaan inaan u sameeyo oo yani usbuuci mar ama laba mar saas oo kale haddii aan waqti u helno ayna noqon macnaha vlog qofka hadda meel istaagay iska dhahaya kelmadaha la adeegsanayo iyo yani camiiq si u qoto dheer insha Allah sidaas ayuu noqon doonaa aad iyo aad baa umahadsantahay gudoomiye waxaan u galaynaa hadeertan su-aalihii dadka ayna soo weydiiyeen su-aashan islaam soomaali waxa uu leeyahay amaba cabdiraxmaan axmed asalaamu calaykum sidee qofku ku joogtayn karaa wax isbaridda self study wallahi horta ma jirto wax la yiraahdo macnaha qaab noocaas ayaad ku joogtayn kartaa kaliya yani waa inaad qorshe degsataa hadda dadayowga hadli jiray waagara dhihi jiray waqtigaada ka faa'iidayso ama yani maanta waxay ku soo biyo shubteen kaliya in qofka la dhaho loogu soo koobo mas-uuliyad isisaar yani ma jirto wax la yiraahdo waxaasan samayn ama waxaa samee si aad macnaha wax u joogtayso jadwal degso يعني جدول كاسنا كسعة فإذا عزمت فتوكل على الله قوان قاضو كدبنا جدول كاس كسعة يعني ما أهن أرنكو أرن يعني منها قفل وكلها كلا وحاسمة تدكنا رنتي أنت بدن قفل بحسوجي إن لين هذا وحاسمة يعني كان ما إن هذا هي اللي كله جر أفكار قلنا يعني قف عاقلة إلهي عقل سيء قانجار مسؤوليات قاضي كرا وحاد قوان سوي وحن إناد برته إناد لقدان إسبرته إناد هذا واحد إسبرته go-aan samee waqti u deji waqtigaasna macnaha isku ballanso in aadan ka laabanaynin yani maalan maalintii oo kale waxaad leedahay 2 saac min hebel ilaa hebel waxaan baranayaa luqadan wax kale ma qabanayo wax ka soo dhacana aadan baajinin waxaad arkaysaa muddo kadib inay caadi ku noqonayso marka arinku waa saas xataa fiiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam aqliyada bini aadamka yani sida uu ma sha Allah quraanka kale marka quraanka aad akhrinayso kale yani waxa laga yaabaa inaad khushuucsaneen yani khushuuc isu keen heer waxaad gaaraysaa iska dhigadan inaad khushuucsantahay marka dambe aad gaarayso inaad khushuucdo si dhab u khushuucdo marka maanta markaad sabarto oo aad go'aan qaadad isqasabto bari wax ku noqon wax caadi ah waxa uu leeyahay Cabdikariim Diiriye waxaan jeclahay inaad ii weydiiso haddii waqtigu ku saamaxayo buugee ayaa kugu fiicnaa buugaagta aad akhrisay ma jiraan wax aad noloshaada ka qoomamayso tusaale ma jiraan waxaad dhahdo Cumarow haddaad sidaa iyo sidaa samayn lahayd aad baad u mahadsantihiin horta dhinaca buugta ama yani aniga waxaan dadka yani shakhsiyan markaan iska hadlo su-aasha waa ku mahadsan tahay waxaan ka mid ah dadka aaminsan ama nacab kelmadda tusaale ahaan yani maalan filimkee kugu badnaa ku saameeyey laacibka kubadda cagta kaa dhigay inaad kubadda cagta jeclaato buugga saamaynta kugu yeeshay yani noloshanadu waa wax isbiirsaday معناها مجرى ما أنت كتاب أضلاد هاي كتاب هبل أيا سامين ويا شيء أما وهبل يعني وحيابة إسبير صدي ما أنتو حلا كتابنا أخرسه سامين وكويا شا كدبنا أبر أخرس مت كلا سيدا كلا سامين وكويا شا مركا يعني مجرى وح معين أو سامين ويا شيء أو هذا أن كلها مثلا كتاب هبل أيا سامين ويا شيء كتب طبعا بني آدم كقرآن الأخرية رنتي قاممين waxaan isdhihi lahaa youtube-ka macnaa inaad mar hore bilowday ahayd kaliya arrinkan ka qoomamay iyo in aan youtube-ka mar hore u go'o yani in aan muuqaaladan waxaan aaminsanahay inaan daahay oo laga rabay macnaha 2 sano ka hor inaan go'aankan qaato inaan youtube-ka u go'o marka laakiin qadar loo ma shaa facal yani duruufta adduunka sidaas ahayd marka runtii yani bini aadamka noloshiisa qoomama iyo shalayta labadaba way jiraan mid waxaa dhihi jiray waxa akhrimid yiri ilaahayow mucaanaadkayga macnaha dhibaatada ay haysta ha iga qaadin macnaha asagoo la jeeda yani dhibaatada wuxuu ku leeyahay yani mashaakilka isoo wajahaya waa wax iga dhigaya qofkan ahay marka noloshanadu waa maalin farax aywa waa inaad wax ka barataa marka ma aan maalin macnaha adduunka xaalkiisa ayaa sidaan inaad maalin mashaakilku soo wajahan badan beri yani tanfarij ilaahay yani uu faraj keenayo marka xaalka adduunka ay sidaas naadiyaad waa si wacan maxamuud xaydar waxa uu leeyahay xagga fursadaha shaqo ee dhanka cilmiga tiknoolajiyadda ma ku badan yihiin dalka Qatar
qofka cilmigaas leh se fursad shaqo oo intee leeg ayuu ka helaya wala horta marka si loo fiiriyo su-aasha waxaad moodaa su-aal macnaha guud inay tahay teknolojiyadda yani wax kastaa soo geli karo teknolojiyadda waxaa soo geli karo yani waxyaaba aad iyo aad u badan marka yani dalkan qatar horta waxaan ku dhihi karaa aan ku huba inuu yahay dal macnaha dhinaca waraaqaha ay yareynayaan waraaqa la isdhaafsado oo hadda xilliyada qaar markaad meelaha aadayso oo kale ay yartahay in waraaq aad qaadato marka dhinacaas aad ayay ugu dadaalayaan laakiin teknolojiyadda aad baratay ama qofka uu soo bartay dabcan maadan xadidin yani waxyaabo badan baa jiro computer saxaafadda la xiriirtaa jiro tekniikaas runtii wax kasta oo teknolojiyadda la xiriiro maanta waxa ugu muhiimsan caalamkan runtii aad bayna mawduucan hindiba inta badan keenaan oo hindiya laga keenaa yani kombyuutarada iyo wax walba oo teknolojiyadan la xiriiro marka waxaan aaminsanahay ama waxaan ku dhihi lahaa yani insha allah dad imaado dhul ma dhacaysid cabdiraxmaan waxa uu leeyahay ma igula talin lahayd inaan jaamacad iyo iskoolba intaan iska daayo self study sameeyo oo aan iska shaqaysto wala horta waxaad ogaataan ani markaan ka hadlaayo inta badan waan sheegaa weli qofna kulama talay macnaha inuu waxbarashada akaademiga iska daayo waxbarashada akaademiga runtii waa muhiim waa shay yani ku saacidayo waa shay aad ku tiirsanaanayso dadku waxaa laga yaabaa qof aad inuu shahaado haysto laakiin aan waxba aqoonin shahaado jaamacadeed buu wataa laakiin qofkan wax uu xirfado ku shaqaysta ma yaqaan marka haddiiba aad awooddo inaad samayn karto shahaadada jaamacadeed qaado iskool dhigo laakiin waxa wax kaa dhigay adiga ku qeexaya ka shakhsi ahaan mustaqbalkaadan insha allah kor kuu qaadaya waa waxaas adiga aad isbartay waxbarashada nidaamiga haddii ay noqoto jaamacad inta badan yani waxay un kuu furayaan wadadii aad wax ku baran lahayd ay kuu furay laakiin yani waxa wax isbaraya waa adiga aad iyo aad dabcan waxbarashada akademiga xirfad kuma siinaysa xirfadaha waa la bartaa waa inuu qofka isbaro waa inuu joogtay magacaygu waa Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Jigjigo waxaan weydiin lahaa ogaansho asagoo ku mahadsan talooyinka qiimaha leh ee uu dadka Soomaaliyeed siiyo waxaynu ognahay in dadkeena ay halaagtay qabyaalad asaguna waxaan ooga baranay talooyin wanaagsan dad badanna waa ku xidhan yihiin marka maxaa uga qorshaysan aafadaas inuu dadka ka wacyigeliyo macal adigu qudhaadi waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo midaas waayo bulshada badan baa idinku xiran waxaana waad bedeli kartaan haddaad youtuberada Soomaalida oo dhan isku tashataan mahadsanid horto yani dabcan qabyaaladda waan wada ognahay inay tahay wax xun runtii aniga hadda Soomaaliya markii maanta si loo fiiriyo lama dhihi karo ilaa heer macnaha qabyaaladba aad uga jirto yani Soomaalidana qabyaaladu way ka jirtaa laakiin caalamka kale hadda mesela Afrikaanka kale markaad u fiiriso Soomaalida intaasoo dagaal sokeeyay qabyaalad soo dhexmarayay weli ma dhicin in dad ay macnaha dumar la caloolo dooxo maleeshiyad ba un dagaalamayay in macnaha hadda YouTube laga hadla yiraahdo qabyaaladda waxaan aaminsanahay in haba yaraatay aan waxba soo kordhinaynin waxaan ula jeedaa inay ahayn macnaha wada munaasab ah ama in yani maanta dhahno arrinkan wuxuu ka dhigay inaan macnaha sii horinayno inaan sii badinin wax kasto waxaad ogaataa aad looga hadlo laga diga mar walba inta badan inay faafaan marka hadda ani yani alxamdulillah dhalinyarada hadda marquub marka ma filayo hadda mushkilada ugu weyn Soomaali haysato runtii aan markaan way ka mid tahay dabcan qabyaaladda laakiin mushkilada ugu weyn Soomaali haysta ma ahan yani qabyaalad way jirtaa laakiin waxay ka mid tahay mashaakilka haysta min ضمن المشاكل bay ka mid tahay laakiin يعني ما إن أنا هنا كله يوتيوب كان أوجه هذا الله قاعدة قبيلة رنتي أنا كشخصيا مناسب إلى ما أهن أديات أنا هذا أنا وحكود درا ما دام ولا بدنا ندرس واش نسوي جدي عبد الرحمن وحنده لها رنتي قبيلة دهرت ولا بو حنا كلا قاعدنا قبيلك يا قبيلة يعني قبيلك واحد اسكو قرته إلهي بأن قرآنك كل شيء وواحد وناكس معناها واحد اسكو قرته وي ودن كان أنا دام كنا لنا قدر رده قفل بابا أو قرن هبل وريه هبل kaarkiis IDgiis oo wadanka u dhashay ma garatay marka sababtuna waxa weeye in dadka lagu gartay oo ugu tala galeen marka haddii sidaas ay qabiilka u qaadanayno waa wax wanaagsan laakiin qabyaaladda iyo takoorka iyo xumaanta weeye waxa ay tahay in maxaa la dhahaa dadka laga wacyigeliyo lagana dhiirigeliyo sida uu Umar sheegayna aslan sidaan uga hadlaynaba waxaan moodaa inay sii bulaashay aysan macnaha yani dad badan baa ka hadla runtii مع سواء قف قدها قداشيس وحي كسمينا laga yaabaa inuu dadka la soo horistay qabyaalada aan ka tagno marka waxa muhiimka waxa weeyaan ani aan u aaneynayo mashaakilkan haysto
xirfad yari iyo aqoon yari iyo wacyigeena hooseeyo iyo anagoo isfiirinay dunida kale aanan fiirinin. marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada qofkii doonaya inuu qabiilka ka gudbo in uu akhriyo buugaagta Soomaalida ee taariikhda Soomaalida ka hadlayso. aniga oo kale tusaale ahaan waagaan dhalinyarada ahaa ee 12 jirka ahaa buugaag badan oo aan akhriya jiro. buugaagtaasna runtii waxa ay siiyaan thaqaafo ah in qabiil kasta uu leeyahay dad wanaagsan iyo dad xun. qabiil kasta uu leeyahay dad dadka dhibo iyo dadka saacideeyo oo wax wanaagsan u qabto. qabiil kasta uu leeyahay kuwa mushkilad ku haya bulshada iyo kuwa wanaag badan u haya bulshada. qabiil kasta uu leeyahay aqoon-yahano fiican iyo dad maxaa la dhahaa aad u aqoon daran oo haddana maxaa la dhahaa qaylo badan. marka taasi aad ku ogaan karto waxa weeyaan inaad akhriso buugaagta taariikhda Soomaaliya ka hadlaya. waxaad akhrisaa kale buugga la yiraahdo taariikhdii daraawiishta iyo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo qoray oo Jaamac Umar Ciise. waxaad kaloo akhrisaa Cabdiqaadir Oromo nin la dhaho wala wax walba oo qoray aadan qaadan karin laakiin haddana يعني si fiican waxaad u fahmaysaa qabiil kasta inay dad wanaagsan iyo dad xun leeyihiin. waxaa kamid ah sooyaalka Soomaaliya buug la dhaho, waxaa kamid ah sababihii burburka Soomaaliya buug la dhaho. buugtaas dad akhriyo waxaan isleeyahay runtii qofka waxa uu ogaanayaa in qabiil kasta uu leeyahay dad wanaagsan iyo dad xun, dad fiican iyo maxaa la dhahaa dad siloon intaba inuu leeyahay. marka si aad taas marka u gaarto waa inaad wax akhriso, waa inaad maxaa la dhahaa taariikhda dadkaaga dadka waayeelka la fariisata ee qabiilada kale aadan ka cabsan ee dhex gasho dadkooda oo aad maxaa la sheekaysato. taasna waa muhiim. marka si aan qabiilada uga tagnaan intaas baan ku beerin lahaa. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Cumar Inshaar. waan kaga mahad celinayaa runtii martigelinta iyo waliba codsiga aad naga aqbashay. waxaan rajaynayaa runtii inuu muuqaalkan uu wax un ku biiriyay dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ee daneynaya inay nafsadooda horumariyaan. asagana waan uga mahad celinaynaa runtii wacyigelinta iyo dhiirigelinta iyo wanaaga badan ee uu soo bandhigo. guul iyo horumar ayaan u rajaynaynaa. adinkana waad mahadsantihiin daawashadiina iyo dhageysigiina iyo la socodkiina iyo dhiirigelintiina iyo mahadcelintiina aad u tiro badan ee runtii aan akhriyo runtii noona ah wuquudka ama shidaalka aan maxaa la dhahaa wax ku soo gudbino. aad baad u mahadsantihiin. tan iyo muuqaal kale waa walaalkiin ama broadcast kale waa walaalkiin Cabdulle Khalifa idin leh. salaam calaykum.